guriga uu ka deganaa magaalada Addis Ababa meel u dhow Hotel Atlas ayay ciidamada federaalka ka soo kaxeeyeen Cabdi Maxamuud Cumar madaxweynihii hore ee dowlad deegaanka Soomaalida oo muddo bil ku dhow xabsi guri ku ah halkaasi sida ay faafisay wakaaladda wararka Itoobiya ee Fana xiriir ilaaliyaha guud ee Itoobiya ayaa sheegay in loo haysto dacwad la xiriirta gaboodfallo ka dhan ah xuquuqda aadanaha iyo ku takrifal awoodeed lama oga cadeymaha xiriir ilaalintu ay maxkamadda horkeeni doonto iyo goorta maxkamadda la horgeyn doono hase yeeshee ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed oo shalay ka hadlay shir jaraa'id ayaa sheegay in arrinka Cabdi Maxamuud Cumar uu mari doono dariiqa saxda ah ee garsoorka isla markaana uu heli doono maxkamad cadaaladda Cabdi Maxamuud Cumar waxa uu noqonayaa qofkii ugu sareeyay oo la soo xiro maxkamadna la soo taago marka laga hadlayo dadka kala duwan ee guud ahaan Itoobiya ee lagu eedeynayo xadgudubyada ka dhanka ah xuquuqda aadanaha ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo shalay ka hadlay sidoo kale xisbiga TPLF ee gobolka Kenya ayaa yiri TPLF oo kaliya ma ahan dadka isbedelka ka soo horjeeda ee dhammaan xisbiyada ku jira isbahaysiga talada haya dad ka mid ah ayaa ka soo horjeeda isbedelka waxna waan ka qaban doonaa ayuu yiri Abiy Ahmed oo u muuqda markii ugu horeysay oo uu si toos ah uga hadlo arrimo aanan shaaca u soo bixin wixii hadda ka horeeyay Cabdi Maxamuud Cumar oo kaliya ma ahan dadka cadaaladda lala tiigsanayo sidoo kale warbaahinta Itoobiya waxa ay sheegaysaa in sidoo kale ay booliiska soo xirayaan dad kale oo Cabdi ku xirnaa kana mid ahaa xukuumaddiisa shalay ayay ahayd markii baarlamaanka dowlad deegaanka uu xasaanadii ka xayuubiyay Cabdi Maxamuud Cumar iyo dhowr kale oo shakhsiyaad ah oo loo haysto dambiyo kala duwan dad kala duwan oo la hadlay warbaahinta ayaa muddooyinkii la soo dhaafay waxa ay sheegayeen in dhibaatooyin jirdil ah ay kala kulmeen dhulka Soomaalida gaar ahaan xabsi ku yaala magaalada Jigjiga waxaa sidoo kale warbixintaas la mid ah soo saaray hay'adaha xuquuqda aadanaha oo iyagu ku baaqaya in cadaaladda la horkeeno dadkii ka dambeeyay xadgudubyada sida uu soo bandhigay telefishinka Itoobiya waxaa guriga Cabdi Maxamuud Cumar laga helay hub tiro badan oo ka kooban qoryaha AK47 kuwaas oo ka badnaa 5 qori iyo risaastooda iyo waliba bastoolado waxaana TV-ku uu sheegay in Cabdi Maxamuud Cumar uu haystay balse lama soo muujin ciidankii qoryahaas haystay gurigana waxaa kaliya oo ka soo baxay Cabdi Maxamuud Cumar arrinta hubka ayaa la sheegayaa in galka dacwadda ay ka mid tahay lama se oga sida uu Cabdi Maxamuud Cumar ku helay hubka hadiiba muddo bil ah oo xabsi guri ku jiray waxaase la fahansan yahay in Cabdi Maxamuud Cumar uu u talinayay ciidamo kumanaan ah oo lagu magacaabo Liyu Police kuwaas oo wali aan talisyadoodii la arag lana ogeyn xaalkooda meel uu ku dambeyn doono